Assalaamu calaykum walaalayaal. Videogan waa React Crash Course. Waxaan ku dhisi doonaa markaasi project real world ah. Projectkan waxaad ku baran doontaa waxyaalo badan oo ku saabsan React.js. Intaynu ka hadlin waxyaalaha aad ku baranayso, ugu horeyn aan isla fiirino projectiga aan sameynayno sida uu ekaanayo. Alright. Waxaan sameyn doonaa markaasi projectigan idiin muuqda. Haddii aan overview yar idinka siiyo, projectigan waxa weeyaan project ama website lagu iibinayo mobilada. Halkan waxaan ku haysanaa logo ay ku qoran tahay iMobiSites. Halkaana waxaan ku inoo yaala ama aan ku haysanaa navigation barskeena oo ka kooban ilaa 4 nav items. Waxaan ku haysanaa home, product, about iyo contact. Halkaana waa showcase-teeni. Waxaan halkan ku haysanaa text ay ku qoran tahay if this phone is not useful we will return your money back. Halkaana waxaan ku haysanaa description. Halkaana waxaa inoo yaala markaasi image. Halkan waxaa inoo yaala iyadana markaasi button ay ku qoran tahay go to cart. Halkaana waxaan ku haysanaa haddaan hoos u scroll garayno footerkeena oo ka kooban markaasi 3 links oo ah YouTube, Instagram iyo Twitter. Halkan waxaan ku haysanaa sub footerkeena. Projectigan waxyaalaha markaasi aadka u cajaa'ibta badan aad ku baran doonto waxaa ka mid ah haddaan reload idhaahno waxaad arkaysaa markaasi effect, transition, animation. Waxaad ku baran doontaa library aad iyo aad useful ah oo markaasi React.js ay leedahay. Reload haddaan idhaahno pop waxaad arkaysaan animationkaas. Waxaan baran doonaa markaasi library ay leedahay React.js oo loo yaqaano Framer Motion. Balse aynu hadda isla eegno projectiga sida uu ekaanayo. Haddii aan ku dhufano buttonkan ay ku qoran tahay go to cart wuxuuna geyn doonaa our products page. Ma arkaysin animationka? Wow. Waxaad arkaysaan in URL-ka isbedelayo. oo markaasi React waxyaalaha ay ku wanaagsan tahay waxaa ka mid ah haddii aan iminka isticmaali lahayn HTML caadiya oo aan isticmaali lahayn ama anchor tag. Waxaa dhici lahaa markaasi mar walba oo linkiga la soo raaco page loading. Balse waxaan isticmaali doonaa library ay leedahay React.js oo loo yaqaano markaasi React Router. React Router DOM basically waxay kuu suurtagelinaysaa markaasi pages-kaaga inaad isugu navigate garayso iyadoo aynan dhicinin wax page loading ah. Okay. Aan ku celin markaasi haddii aan tagno hadda home page-ka oo aad u fiirsato ma dhacayo wax page loading ah. Kaliya waxaa isbedelaya URL-ka. taasoo markaasi sare u qaadaysa user experience-ga iyo weliba performance-ga application-kaada. Aan ku dhufano go to cart. Wow, maaragtaan animation-kan. Halkan waxaan ku haysanaa markaasi title ay ku qoran tahay our products. Halkaana waxaan ku haysanaa ilaa 6 item oo markaasi ka kooban Apple Watch iyo MacBook Air. Waa basically products-ka shirkadda Apple. Itemyadan arkaysaan ma aha itemyo aan caadi u qori doono. Waxaan markaasi adeegsan doonaa JSON amaba JavaScript object notation oo markaasi useful ah marka aad React.js joogto waxyaalo badanna ka anfacaysa. Projectiga baan ku baran doonaa. Datadan waxaan ku haysan doonaa JSON data. Kadib datadaas baan ku dul wareegi doonaa anagoo adeegsan doona hire method ay leedahay. JSON datada waxyaalaha ay ku fiican tahay waxaa ka mid ah datadaadu markaasi waa mid structured ah oo kuma wareeraysid wax overwhelming ah iyo ma dhacayaan. wayna fududaanaysaa markaasi inaad wax ka bedesho oo kaliya haddii aan u baahanahay markaasi inaan Apple Watch wax ka bedelo kaliya waxaa tagaya datadayda baa Apple Watch meesha ay waxaan doono ku bedelaya. Waxyaalaha loo adeegsadana waxaa ka mid ah back-endiga inay la deal garayso. Alright. Halkan waxaan ku haysanaa markaasi Apple Watch description iyo weliba price-ka la gadaayo. Dhammaantoodana waxaan ku haysanaa intaas. Haddaan hover garayno waxaan arkaysaa inuu yeelanayo box shadow. Halkan waxaan ku haysanaa markaasi footer-keena. Alright. Haddii aan ku dhufano about page-keena aan tagno wow. Waxaad arkaysaa markaasi opacity-giisa inuu yaraa kadibna soo wada baxay. Refresh. Wow. Waxaan halkan ku haysanaa markaasi image oo leh markaasi border radius yar. Waxaan haysanaa markaasi text amaba title ay ku qoran tahay about us iyo description. Alright. Halkan waxaan ku haysanaa footer-keena. Halkan iyadana haddii aan ku dhufano markaasi contact page-keena waxaan arkaynaa markaasi contact us.
halkan waxaan ku haysanaa image aad u qurux badan iyo weliba contact formkeena. Alright, waa small application markaasi yar ood ku baran doonto waxyaalo badan oo markaasi in badan ku anfacaya marka aad React.js joogto. Projectigan waxyaalaha aad ku baran doonto waxaa ka mid ah basiga ah reactive folder structure. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa markaasi nav items sida loo sameeyo adigoo aan adeegsanaynin anchor tag ee adeegsanaya reactive router. oo markaasi aad ba hadda aragteen faa'iidooyinkeeda oo inuuna page load dhicinin website-kaagana uu manage garaysan yahay. Alright, haddii aad diyaar tahay waxaan u guda geli doonaa markaasi inaan dhisno projectigan. Let's go. waxaan hadda ku dhex jirnaa Visual Studio Code. waxaan sameynay folder aan ugu magac darno markaasi mobile website. sida ugu fudud markaasi aad u bilaabi karto React application waxaad u bilaabi kartaa habab kala duwan oo adigoo CDNs ka soo qaadanayo, balse sida ugu fudud waa inaad terminalkaaga aad tagto oo aad qorto markaasi mbx create react app. intaas markaa qorto waxaad sheegaysaa folderka aad ku sameynayso magaciisa. haddii aad ku sameynayso tusaale kale aad folder kale aad ku darayso hello, wuxuu sameynayaa markaasi folder loo yaqaan hello ay ku guda jiraan boilerplate amaba template diyaarsan oo React.js ay ku jiraan waxyaalaha aad u baahan tahay React.js sida packageska, librarieska. bas hadda waxaan doonayaa kaliya folderkan gudihiisa inaan ku generate gareeyo. si aan u generate gareeyo waxaan dhahayaa // wuxuu inoogu sameynayaa boilerplate filekan gudihiisa, folderkan gudihiisa. waxaad hubisaa markaasi folderka magacaad u bixinayso inuuna ka koobnayn wax capital letter ah, sidoo kale uusan u dhexaynin space. haddaan intan idhaahno wuxuu inoo generate gareyn doonaa markaasi application template ah oo wax waliba ay ku guda jiraan. waxaa laga yaabaa inay qaadato waqti xoogaa ah, waan iska sugi doonaa ama waa isku soo noqon doonaa. Alright, wuxuu inoo sameeyey markaasi boilerplate React.js ah oo diyaarsan. haddii aan fiirino markaasi folderkan oo inoo sameeyey structurekiisa, folderkan ay ku qoran tahay node modules. haddii aad fiiriso waxaa inoogu jira dhammaan librariyada aan soo install garaysanayno, oo markaasi ma u baahnidba folderkan inaad wax ka baarto ama aad furto. haddii aan furno folderkan ay ku qoran tahay public, halkan waxaan ku haysanaa Vavi icon. intaan folderadan fiirin aan ku furno development server si aan isugula aragno. si aad u furto isaga instruction ku siinayo wuxuu ku leeyahay waxaad qortaa npm start si uu kugu sameeyo local host. npm start wuxuu inoogu furi doonaa markaasi local host. Alright, wuxuu inoogu furi markaasi deployment serverkeena oo waxaan haysanaa markaasi local host 3000. waxaa inoogu jira markaasi landing pagekan loogada React. halkan waxaan ku haysanaa button oo ku qoranta markaasi land React. haddii aan fiirino waxyaalahan halka ay ka imaanayaan aan isla fiirino. ugu horreyn waxaan halka ku haysanaa Vavi icon. aan isku ag furno ugu horreyn si aan isbedelka u aragno si immediate ah. waxaan halka ku haysanaa ugu horreyn logo ay ku qoran tahay markaasi Vavi icon. logadan waxa weeyaan logada halkaas inoo saaran oo React logo ah. haddii aan fiirino halkan waxaan ku haysanaa index caadi ah. haddii aan ka tirtirno markaasi commentskan waxaan haysanaa HTML caadiya oo kaliya ku guda jira div id wata loo yaqaano root. waana halka mar lagu render gareyn doono dhammaan React applicationkeena. okay, waan arki doonaa markaas rootkan sida loogu render gareynayo. waxaan bedeli karnaa titlekan React app aan ku bedelno emobi sites oo ah titleka applicationkeena. haddii aan fiirino waxaa isbedelaya markaasi titlekeena. okay, haddii aan fiirino failashan kale halkan waxaan ku haysanaa logo React.js ah iyadoo yar iyo iyadoo weynba. okay, waxaan tirtiri doonaa failashan intaan anficaynin haddaan deleedno logadan
on deleedno iyadoo weynba, on deleedno fileka ay ku qoran tahay manifest json, on deleedno robotics.txt. alright, delete publictaas haddaan intaas ugu soo baxno waxaan halkan ku haysanaa src folderkan waa folderka aad wax ku dari doonto waxna ka bedeli doonto ood manage gareyn karto. waa folderka ugu muhiimsan applicationkaada. halkan waxaan ku haysanaa markaasi app.css ay ku jiraan styling caadi ah oo markaasi lagu style gareynayo applicationka. halkan waxaan ku haysanaa app.js waana markaasi halka lagu render gareynayo dhammaan applicationkeena. halkan waxaan ku haysanaa app.txt oo hadda aanan baran doonin. halkan waxaan ku haysanaa index.css iyo index.js. haddii aad xasuustaan haddaatay waxaan haysanay div uu keliya leeyahay hal id oo la yidhaahdo root. waxaa la render gareynayaa dhammaan applicationkeena oo waxaa lagu render gareynayaa document tag get element by id soo qabo root. dhammaan waxa aan qornay waxaa lagu render gareynayaa rootkan oo elementi ah aan ku haysana html keena. haddii aan iska daleedno commentskan waxaan iska tirtiri doonaa dhammaan waxyaalaha aanan u baahnayn oo waxaan soo saaran doonaa file la fahmi karo. haddaan iska daleedno robotkan oo iska daleedno importi aan soo import gareysanay waxaan iska daleegi doonaa app.txt. sidoo kale waxaan daleegi doonaa logadan, waxaan daleegi doonaa robot web vital, waxaan daleegi doonaa setup, sidoo kale waxaan daleegi doonaa markaasi app.css iyo index.css. okay, waxaan noo soo saarayaa error sababtoo ah waxyaala aan daleednaan soo import gareysanay. haddii aan ka tirno string modekan, sidoo kale aan iska tirno wrapkanba si uu garaa markaas applicationkeena oo noogu qurux badnaado. index.css aan iska tirtirno sababtoo ah horaan buu u daleednayba. save app.js na waxaan soo import gareysanay logadan oo already aan delete gareynay. aan iska tirtirno dhammaan waxyaalahan oo dhan aan iska tirtirno keliya aan soo render gareynayo h1 aan ku qorno markaasi hello react maybe. save. okay, headerkan ma laha markaasi tag ending tag ma lahaba. save waan iska daleedno app.css tan sababtoo ah already waan delete gareynay. save waxaan halkan ku haysanaa keliya hello react. okay, aan u guda galno inaan dhisno applicationkeena. waxaan ka bilaabi doonaa headerkeena. haddii aan fiirno waxyaalaha aan header ku haysano qaybta leftiga waxaan ku haysanaa logadan, rightkan waxaan ku haysanaa navigation barskeena. alright, waxaan sameyn doonaa src dan gudaheeda folder aan u magac dari doono components. haddii aadan garanayn components waxaa jira cashir aan hore uga soo hadlay components waxa uu yahay, tusaalooyin aan usoo qaatay, balse hadda haddaan in yar taataabto. components waa qayb ka mid a UI-ga ama user interface-ka. basically componentskana waa reusable. tusaale kale footerku waa component, headerku waa component and so on. waxaan sameyn doonaa componentgaas waxaan ku dhex sameyn doonaa file aan u bixin doono header.js. waxaad hubisaa xarafka ugu horeeya inuu capital yahay sababtoo ah waa component. mar walbaad component sameynayso waxaa qasaba xarafka ugu horeeya inuu capital ahaadaa. waxaad u dambeysiin kartaa .js sidoo kale waxaad raaci kartaa x, labaduba waa isku mid, bas waxaan kuula talin lahaa inaad u dambeysiiso .jsx sababtoo ah waxaad arkaysaa inay soo fuushay loogada react. okay, waxaan sameyneynaa functional component. react waxay leedahay componentskeeda waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo ah functional component iyo class component. balse tutorialkan kuma sharixi doono farqiga u dhexeeya functional component iyo class component sababtoo ah waxay u baahanaysaa logic badan oo waxay qaadanaysaa waqti. all in all waxaan sameyneynaa functional component. si aan u sameyno waxaa jira extension aad iyo aad cool u ah aan kuula talin lahaa inaad soo download gareysto. extensionkaas waxaa loo yaqaanaa ESCGs React Rodix React Native. waa extension aad u wanaagsan oo loogu talagalay React iyo React Native, sidoo kale Rodix oo ka tirsan React oo state management ah. okay,
extensionkan waxyaalaha uu ku qabanayo tusaale kale halkii functional component marka aad sameynayso aad react soo import gareysanaysa waqti badan kaga bixi lahaa kaliya waxaad qoraysaa r react function component export. Okay, haddii aad intaas taabato wuxuu ku sameynayaa functional component kaliya waxaad taabatay rfce waxaana ku sameynaa functional component taasoo yareynaysa waqtiga markaasi badan aad ku bixin lahayd inaad codekan wada qorto. haddii aan sharaxno functional component waxaan soo import gareysanay ugu horeyn react waxaana kasoo import gareysanay react waxayna ka imaanaysaa node modules. Okay, markii hore react inaad soo import gareysto waxay ahayd qasab balse hadda ma u baahnid waa iska tirtiri karnaa. waxaan haysanaa functional component waxaan haysanaa function aan u magac darnay headerkan waa componentiga magaciisa. sidoo kale waxaan export gareynaynaa si default ah headerkii. Okay, waxaa inoogu jira div ay ku dhex qoran tahay header inta ku dhex jirto ritaankan waa javascript xml waa jsx. haddii aad ka dhex baxdo ritaantan waxaad ku dhex qoran kartaa inta javascript caadiya balse marka aad ritaankan soo dhex gasho waxaad ku qoraysaa html caadi oo hadda waxaa ujeedaan div header. Okay, ugu horeyn headerkan aan iska tirtirno aan ku dhex qorno h1 oo aan u bixino header page. save si aad headerkan hadda tusaale kale hadda haddaan fiirino ma arkaysid componentiga aan sameynay sababtoo ah kumaynan export gareynin app-keena. app.js2 waa main component oo lagu soo randar-gareynayo dhammaan application-keena. intaas kadib kaliya waxaa la qaadayaa app.js-ta oo waxaa lagu randar-gareynayaa rootkii shalay aan soo sharaxnay daadki. Okay, aan iska deleedno headertan sidoo kale aan iska deleedno taggeeda ending taggeeda save waxaan soo export gareynaynaa headerkan. Okay, si aan usoo export gareyno waxaan teginaa halka ugu koreyso haddaan iska tirtirno reactidanba waxaan sheegnay inay tahay hadda optional. waxaan soo import gareysanaynaa header from waxaan kasoo import gareysanaynaa waxaad tagtaa dot slash hadaad tiraahdo wuxuu ku furayaa gudaha componentigan waxaad tagtaa components slash waxaa kasii tagtaa header. waxaan soo import gareysanay keyword aan u magac darnay header waxaan kasoo import gareysanaynaa componentska folderkan componentska filekiisa headerka. uma baahnid inaad raaciso extensionkan .jsx sababtoo ah react waxay garanaysaa already inuu yahay component. Okay, si aan usoo render gareyno waxaan halkan ku qoraynaa ending tag oo waxaan leenahay header forward slash. Okay, mar walba ood component aad rabto inaad soo render gareyso waxaad usoo render gareynaysaa sidaan. Okay, haddaan save idhaahno waxaan arkaynaa halkaa inay nooga soo baxday header page oo waxay ka imaanaysaa headertan h1tan aan ku dhex qornay header page. Okay, waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. aan iska tirtirno h1kan kadib aan imaano headerkeena. ugu horeyn waxaan ka bilaabin doonaa headerkeena. haddii aad fiirisaan websitekeena asigoo full ah waxaan halkan ku haysanaa qayb left ah iyo qayb right ah. waxaan u qaybin doonaa main navbar noo haynaya header waxaan u qaybin doonaa laba qaybood oo ah left side iyo right side. Okay, ugu horeyn aan sameyno aan idhaahno header aan ku darno class header loo yaqaano. intaas kadib waxaan sameynaynaa qaybta leftiga ah shift alt down halkan aan ka dhigno qaybta right. Okay, qaybta leftiga waxaan dhex gashanaynaa loogada si aan u dhex gashano waxaan dhahaynaa image. Okay, imagekan aan soo isticmaalayna hadda nooguma jiro waxaan sameynaynaa folder aan u bixin doono assets oo aan gelin doono dhammaanba waxyaalaha imageska aan ku isticmaali doono projectigan. waxaan soo dhex gelinayaa projectigan imageska aan isticmaali doono. waxaan soo dhex gashanaa hadda dhammaanba imageska aan ku isticmaali doono projectigan. waxaan soo import gareysanaynaa brandi ama loogadan oo waxaan rabnaa inaan ku isticmaalno imagekan gudihiisa. markaad html caadi isticmaalayna waxaan dhehaynay dot slash waxaan sheegaynay sourciga imageka balse react markii aad joogto waxaad qoraysaa curly braces oo waxaad usoo gelinaysaa sida javascript caadiya. intaas kadib waxaad tegaysaa halka ugu koreysa
waxaan soo import garaysanaysaa imagekan import brandy ama logo from waxaad kasoo import garaystaa haddaad tiraahdo dot slash keliya waxaad ku dhex jiraysaa folderkan components balse hadda waxaan rabnaa inaan tagno global folderkan src iyo dhammaantiisba si aad u tagto waxaa leedahay dot slash alright hadda waxaad joogtaa src gudihiisa waxaan tegaynaa folderkan assets slash waxaan kasii tegaynaa markaasi loogadan waxaan qoraynaa banner dot png okay waxaad hubisaa inaad spellingka saxday haddii aysan ahayn kuma soo import garayn doono okay waxaan soo qaadanaynaa keywordkan keliya src dana dhex dhigayna okay save iska tirtirna kan okay wuxuuna leeyahay banner lama heli karo why oo banner ma aha no sorry waa brandy save right waxaan hadda haysanaa loogadaas oo waxaan haysanaa loogadii hadda aan isticmaalaynay okay alright intaas kadib waxaan u guda geli doonaa qaybteena right-ka waxaan ku haysanaa ilaa 4 nav links waxaan isticmaali karnaa oo ah anchor tag hajrafta meelnaya inageyn haddaan idhaahno waan ku dhex qornaa home keliya eedaan 3 mar oo kale soo duplicate garayno shift alt down okay kan aan ku bedelno products kan aan ku bedelno about kan ugu dambeeyana aan ka dhigno markaasi contact save let's see what's going here waxaan haysanaa okay waxaan haysanaa 4 items waxaan samayn doonaa fileka css ka waxaan soo dhigi doonaa description-ka github-kii aad ka helaysaan sababtoo cashirkan kuma saabsano css haddaan hadda nidhaahno waa install garaynaynaa waxay nagu qaadanaysaa waqti dheer waxaan samayn doonaa inaan soo dhexgeliyo inaan sameeyo folder loo yaqaano dhammaan styleska oo inoo guridi doonaan dhammaan styleska folderkan styleska waxaan soo gelin doonaa header stylekeena okay folderkan styleska gudihiisa waxaan soo dhex gashanay filekeena styleka headerka okay haddii aad fiirisaan waa basic styling waxaan sameynaynaa headerkeena oo globalka waxaan marginka ka saaraynaa bodykan ka saaraynaa widthgiisa waxaan ka dhigaynaa 100% backgroundkiisana waxaan ka dhigaynaa background white camal ah sarana waxaad kasoo durjinaynaa 0 navbarten haddaad fiirisaan widthgiisa waxaan ka dhigaynaa 100% heightkiisana waxaan ka dhigaynaa 80 pixel waxaan dhehnaa display flex si isku garab dego align item center okay qaybteena laftiga flexiga wuxuu degayaa 50% 50% alright waa styling basiga qof walba fahmi karo okay waxaan soo import garaysanaynaa filekaas stylingka ah okay waxaan tegaynaa halka uu korayso waxaan dhehnaa import waxaan soo import garaystaa markii aad rabto inaad soo import garaysto css caadiya hadda markii aan component soo import garaysanayna waxaan sheegaynay banner tusaale kale from aan dhehn marka css aad soo import garaysanayso kaliya waxaad leedahay waxaad sheegaysaa folderka pathkiisa dot slash waxaad tegaysaa styles slash aad leedahay waxaad sii tegaysaa header.css ma qoraysid header kaligeed waxaad dhehaysaa header.css save alright waxaan raacin doonaa ugu horeyn class marka aad react.js aad joogto ma dhehaysid class caadiya sababtoo ah waxaa jiro keyword ay leedahay javascript oo loo yaqaano class waxa si aan labadaas la isugu qaldin waxaa qasab inaad tiraahdo class waxaan dhehnaa halkan nav link dhammaantoodna waxaan u yeelinaa classkan sababta aan u yeelina waxay tahay waxaan ku haysanaa styling copy paste save navbar save sida arkaysaan ba hadda waxaan haysanaa styling aad u qurux badan dhammaan navbarteen wayna isku soo garab degtay intaas kadib waxaan u guda gelaynaa showcase-keena alright aan ka dhex baxano componentigan aan iska xirno headerka iyo weliba stylingkeeda componentiga gudihiisa waxaan sameynaynaa haddana file loo yaqaano showcase.js waxaan dhehnaa abbreviationka idin sheegayay shortcutka idin sheegayay rfce enter alright ugu horeyn aan kusoo import garaysano headerkeena kaliya kan le waxaan siinayaa trig yar halkii aad qori lahayd import header from header
componentiga abaadkiisa sheegi lahayd marmarka qaar uu ka qaldami lahaa kaliya waxaad imaan kartaa halkan waxaad sheegaysaa showcase-ka magacaad soo bixisa waxaad dhahaysaa tag aad furaysaa showcase haddaad tiraahdo asigaa kuu sheegaya halkaad kasoo import garaysanayso inter haddaad tiraahdo si automatic asigaa kugu soo import garaynaya that is something cool xirno okay fresh showcase-keena aan gudageli doonaa showcase-ka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood left iyo right sida kan oo kale u qaybinaynaa laba qaybood oo left iyo right aan ku horumarno ugu horeyn qaybta globalka ay noo haynaysa aan sameyna class.home classkan ba waxaan dhex geli doonaa qayb lefti iyo qayb right aan ka bilaawno qaybta leftiga waxaa qaybta leftiga sii dhex gelin doonaa h1 oo inoo guda jirto if this phone is not useful we will return your money back okay your money back save waxaan kaloo kusii xijinaynaa paragraph oo descriptionka u taagan paragraph okay waxaan dhahaynaa maybe Lauren Taddy okay save waxaan sii raacinaynaa buttonkaas waxaan dhahaynaa go to cart save okay buttonkan waxaan dhex gelinaynaa a ama anchor tag soo qaad eedaan dhex gelin markaas save alright qaybtan leftiga intaas aan ugu soo baxano waxaan guda gelaynaa qaybta right-ka aan class dhab sameyno dot right aan u bixino waxaan dhex gelinaynaa qaybta right-ka kaliya imageka sourcigiisa wuxuu noqonayaa haddaad assetska fiiriyana saan waxaan isticmaalaynaa bannerkan okay imageka markaasi haddaan kor tagno waxaan soo import garaysanaynaa imagekaas banner from haddaan nidhaahno waxaan ku guda jirnaa kaliya componentska oo wuxuu noo soo qabanayaa folderkan componentiga filesh ku guda jiro oo waxaa noo soo qabanayaa header kaliya globalkan tegaynaa waxaan tegaynaa assets slash waxaan kasii tegaynaa banner.jpg save halkan aan imaadno aan furno banner aan ku dhex qorno save vc haddaan hadda ku laabano browserkeena okay waxaan arkaynaa inay noo soo galeen dhammaan waxyaalihii aan soo gelinay waa h1 waa description waa button ay ku qoran tahay go to cart sidoo kale waa imagekeeni ma rabno inaan style gareyno waxaan wadanaa styling waxaan furi doonaa halkan folderkan stylinka gudihiisa waxaan ka furi doonaa file kale oo aan bixin doono showcase.css waxaan ku paste gareyn doonaa stylinka paste alright haddii aad fiirisaan waxaa wadanaa home teni widthgeeda waxaan ka dhigaynaa 100% display flex waa isgarab dejinaynaa qaybta leftiga widthgeeda waxaan ka dhigaynaa 40% qaybta right-kana 40% waa basic styling okay let's delete this alright aan soo import garaysano filekaas css-ka aan sameynay import /stylist/showcase.css save let's see if it works okay did you see it now awesome go to cart description waa dhammaan waxyaalaheena waanu haysanaa intaas kadib waxaan u guda galaynaa footerkeeni okay waxaan tegi doonaa componentskeena waxaan sameysan doonaa footer.jsx rfc iyo haddaan sameyno oo noo generate gareeyo functional components waxaan dhex dhigi doonaa tag footer ah oo aan raacin doona class loo yaqaano footer intaas kadib waxaa kaliya oon dhex gashan doonaa social media icons social media marka intaas niraahno kadib waxaan isticmaali doonaa library aad u wanaagsan ay leedahay React.js oo loo yaqaano Material UI ugu horeyn waxaan search gareynaynaa website-ka Material UI aan search gareyno Material UI enter waxaan geyn doonaa website-ka Material UI haddaan ku dhufano linkiga ugu horeeyo waa library aad u wanaagsan Material UI
waa React library you always need to use. waa library ama mar walba u baahan tahay inaad isticmaasho ay leeyihiin waana run. waad u baahanaysaa mar walba inaad isticmaasho Material UI. si aan usoo install garaysano waxaan soo qaadanaynaa oon soo koobiyeysanayna commandigan. okay, soo koobiyeyso terminal cusub fur amaba kanna split halkan ku paste garay. aniga already wuu igu jiraa, haddaa fiirsaan wuu igu jiraa markaasi Material UI. adi markay si aad soo install garaysto waxaad qoraysaa command line-kan. markaan soo install garaysano Material UI waxaan isticmaali karnaa oo soo install garaysanaynaa sidoo kale iconskiisa. haddaan get started dhahno waxaad arkaysaa Material UI waxaa loo adeegsadaa waxyaalo fara badan. wuxuu leeyahay components. haddaa componentskiisa sii furno waxyaalaha uu ku siinayo waxaa ka mid ah buttons, auto complete, select, slider, switch, text filter. waxyaalahaas oo dhan waa componentska uu leeyahay. balse anaga hadda waxaan doonaynaa keliya inaan isticmaalno iconskeeda. okay, halkan meeshan searchigan waxaan ka search garaynaynaa Material icons. okay, waxaad search garaynaysaa Material icons kadib waxaad soo qaadanaysaa command line-ka ugu horeeyo. haddii aad isticmaalayso yaana waxaad soo qaadan kartaa waxaad ku paste garaynaysaa terminalkaada command lineskan. for now waxaan isticmaalaynaa npm. waxaad soo qaadataa npm-kan kadibna iyadana waxaad ku paste garaynaysaa halkan. okay, aniga already waan soo install garaystay oo saa ujeedaa Material UI icons way igu jiraan. markaad labadaas soo install garaysto oo soo install garaysto Material UI kadibna aad soo install garaysto iconskeeda waxaad isticmaali kartaa hadda Material UI icons. si aan u isticmaalno ugu horeyn aan ku noqono waxaan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay search the full list of these icons. ku dhufo. markaad ku dhufato hoos down scroll garayno waxaan arkaynaa dhammaan iconskeena. waxaan search garaynaynaa YouTube ugu horeyn. aan ku dhufano qaybtaas YouTube-ka waxaan soo copy garaysanaynaa importigan. waxyaalaha uu Material ku fiican yahay waxaa ka mid ah asigaas si automatic importiga kuu siinayo keliya adiga waa isticmaalaysaa. aan tagno qaybta ugu koreyso paste aan ku dhahno waxaan haysanaa hadda iconkaas. si aad u isticmaasho iconkaas keliya waxaad soo koobiyeysataa markaasi keywordkan. waxaad tegaysaa gudaha social media iconskaaga kadib waxaad furaysaa tag waad ku paste garaynaysaa /tag-na waa xiraysaa. sidii aad componentiga usoo render garaynaysay oo kale baad usoo render garaynaysaa importiga iconskan. save haddaan dhahno oon tagno browserkeena hadda waxba ma arkayno sababto waxa waaye footerkeena kumaynaan soo import garaysanin appkeena. aan tagno app.js-ta kadib waxaan soo import garaysanaynaa footerkeena. haddaan footer qorno asigaa noo dhammaystiri doonaa. haddaa halkan fiirsana wuxuu ku leeyahay auto import. waxaa si automatic loo soo import garaynayaa from components/footer. ku dhuf keliya waad haysataa markaasi. okay, self closing tag save. hadda fiirino browserkeena waxaan arkaynaa halkaas inay nooga soo baxday iconkii YouTube aan soo import garaysanay. okay, waxaan kaloo soo import garaysan doonaa Instagram. maybe Instagram aan ku dhufano aan soo qaadano linkigan aan soo qaadano importigiisa kadibna aan ku paste garayno. aan tagno wareen aan iska xirno showcase-kan sababtoo hore ugu dhamaanay CSS-keedana aan iska xirno footer kale aan soo reebano halkan aan paste ku dhahno. okay, waxaan soo qaadan doonaa Instagram iconkan waxaan ku dhex isticmaali doonaa halkan iyadana paste self closing tag save. haddaan iska yareyno terminalkan waxa kale oo u baahannahay oo soo qaadan doonaa iyadana Twitter icon. Twitter. okay, soo copy garayso isagana ku paste garay halkan. okay, waxaan ku isticmaali doonaa halkan maybe save. haddii aan hadda ku noqono browserkeena aan iska xirno Material UI kan sababtoo ah waa ka dhamaanay wax kale uguma baahnin. okay, haddaan ku noqono hadda browserkeena waxaan arkaynaa saddexdii icon YouTube, Instagram iyo Twitter. okay, waxaa kaloo haysanaa sub footer iyadana aan soo gelino. haddii aan halkaas uga soo baxno social media iconskeena oo aan kasoo baxno taggeeda waxaan halka ku samaysan doonaa paragraphkan waxaan dhex gelin doonaa sub footer oo waxaan dhihi doonaa copyright. si aad markaasi u samayso iconka copyright-ka waxaad leedahay unsign kadibna waxaad leedahay copy apple.com save. haddaan dhahno okay, waxaan arkaynaa hadda copyright apple.com. stylinkeeda waxaan soo qaadan doonaa stylekii fileka CSS-ka. haddii aan tagnoba
haddii aan tagno styleskeena oon sameyno file loo yaqaano footer.css waxaan soo qaadan doonaa stylinka footerka waxaan ku paste gareyneynaa css-ka paste haddaad fiirisaan waxaan haysanaa basic styling waxaan haysanaa footerka widthgiisa waxaan ka dhignaa 100% heightkiisana 200 background colorkiisana color yaro grey ah waan iska garab dejinay justify content center inay tagaan align item center flexi directionkeedana oo kala noqdo sarana in padding uu ka yeesho 10 pixel ah social media svg ga waa loogada typekeeda waa svg colorkeeda waan ka dhiganaa white okay paragraph ku jiran colorkiisana waxaan ka dhiganaa white save alright aan kusoo import gareysano filekeena js ta dhahno import /styles/footer.css save no.css save aan fiirino hadday shaqaynayso alright pop waxaad haysanaa footerkeeni okay intaas kadib waxaan u guda geli doonaa inaan sameyno routingkeeda qaybtan waa qayb aad muhiim u ah markii aad React.js joogto sababtoo waxaan sameyneynaa routingkeena haddii aad hadda fiirisaan waxaan isticmaaleynaa links caadiya oo haddii aad ku dhufataan si aan idin tusiyo sababta React router ay ugu fiican tahay anchor tag-an caadiga ugu horreyn aan fiirino ama isku ag furno si aan isbedelka isugu aragno si immediate ugu horreyn waxaan tegi doonaa headerkeena qaybtaas aan iska yara xirno headerkeena markaan isticmaalina href haddii aan dhahno hreftan hayna geyso product maybe tusaale ahaan ood usoo laabataan mar walba aan ku dhufano waxaan arkaynaa inuu page loading dhacaya taasna waxay problem ku tahay performance-ga website-kaaga sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka in internet connectionkiisa uusan wanaagsanayn loadingkaas badanna ay dhibaato u keento uu ka caajiso website-kaaga balse hadda aan fiirino hadda waxaan isticmaaleynaa React router waa library ay leedahay React.js waxaana loo adeegsadaa laba page in la isugu navigate gareeyo tusaalahaan haddii aad joogto homekaaga ood rabto inaad tagto product page-kaada waxaad adeegsanaysaa React router right let's see ugu horreyn aan tagnaba website-ka mainka ay leedahay React router oo spelling-ka qaladnay reactrouter.com haddii aan tagno website-kooda waxaan arkaynaa inay marayso hadda version 6 haddii aad fiirisaan ugu horreyn waxaad sheegaysaa routka pathkiisa iyo elementiga tusaale kale app waan arki doonaa waxyaalahan aan soo keliya hadda soo import gareysano waxaan tegaynaa read documents intaas kadib waxaan tegaynaa qaybta installationka wuxuu ku siinayaa options badan oo ah npm iyo yan waxaad furtaa qaybta npm-ka waxaad soo koobiyeysan doonaa intaan terminalkeena ku paste gareyn doonaa copy aan furno terminal kale new terminal aan furno aan yaro weyneynaba kadibna aan ku paste gareyno halkan paste enter waxaan soo install gareysan doonaa library-gan React router ah library walba aan soo install gareysano waxaan ka heli karnaa package json haddaad fiirisaan hadda waxaad arkaysaa inuu noo soo galo React router dom okay that's cool waxaan soo import gareysanaynaa waxyaalo dhowr ah ugu horreyn haddii aan tagno app.js-teena waxaan rabnaa headerkeena in si permanent la arko sababtoo ah waa navigationskeeni balse markii aan showcase ka joogno haddii lagu dhufto linkiga product isku geenaya waxaan rabnaa showcase-ka inay baxdo oo product soo baxo balse headerka iyo footerku iyagu waxay u taagnaanayaan si permanent oo routerska kama qayb qaadanayaan alright ugu horreyn waxaan soo import gareysanaynaa components dhowr ah ay leedahay React router ugu horreyn waxaan soo import gareysanaynaa from React router dom waxaan soo import gareysanaynaa ugu horreyn browser router caadi ahaan sidiisa waa u isticmaali kartaa balse si loo soo abbreviation loogu sameeyo waxaa la adeegsadaa as router sababtoo ah browser router waa magac dheer waxaa laga yaabaa qoritaanka inuu ku dhibo intaas kadib waxaan soo import gareysanaynaa component idana loo yaqaano route waxaan kaloo soo import gareysanaynaa component loo yaqaano routes okay waxyaalaha faa'iidooyinka ay leeyihiin dib baan ka arki doonaa ugu horreyn waxaan ku raab gareynaynaa dhammaan application-keena routerkaas alright aan soo qaadno dhammaan intaan save
routerkan wuxuu cadeynayaa in waxyaalahan aad rabto inaad routing ku sameyso. Routerskan wixii aad routing ku sameynayso waxaad dhex gelinaysaa gudaha routerskan. Routekana waa halka loo route gareynayo. Aan fiirino routerskan aan soo qaadano aabkan gudihiisa aan tagno ma doonayno headerka inuu ka qayb qaato routingka. waxaan sameynaynaa headerkan hoostiisa aan leenahay routes soo xir. waxaan kaliya dhex dhigaynaa showcase-keena iminka. Okay, waxaan soo qaadanaynaa haddana componentigan route-ka ah. Route waxaan leenahay route wuxuu qaadanayaa waxyaalo dhowr ah. Self closing tag aad leedahay. waxaa lagu raab gareynayaa dhammaan waxyaalaha routing ku jira routeskan. waxaan ka sharixi doonaa dib, balse hadda aan qorno. waxaad sheegaysaa path-ka aad loo routing gareynayo. haddaan idhaahno path-ka waxaad ka dhigtaa slash oo marabna waa home-kii. intaas kadib waxaad sheegaysaa elementiga lasoo muujinayo markii oo path-kan la aado. elementigan gudihiisa waxaan dhex dhigaynaa wixii aan rabno inaan soo routing ku sameyno. Alright, waxaan soo qaadanaynaa showcase-kan. Save aan iska xirno terminalkan. terminalka asigana iska soo yareyno. Okay, haddii aan hadda ku fiirino browserkeena kanna aan iska xirno. Alright, haddii aan hadda ku fiirino browserkeena waxaan arkaynaa inay qarsantay showcase-keeni. sababtay u qarsantahay waxa waaye routingka waxaan joognaa hadda product page. haddaan product page-kan aan tirtirno waxaa soo baxayaa showcase-keeni. Basically React router waxaa loo adeegsadaa in page-yada la isku navigate gareeyo sidaan sheegnay. haddii aan iminka aan routingka aan bedelno oo nidhaahno /b oo kale waxaa halkaas ka baxayaa showcase-keeni. waxaana soo muuqanaya kaliya headerkeena iyo footerkeena. sababtuna waxa waaye headerka iyo footerku iyagu kuma jiraan waxyaalaha lagu sameynayo routingka. Okay, aan sharaxno in yar. haddii aad iminka fiirisaan waxaan soo import gareysanay browser router as router. browser router wuxuu browserka u sheegayaa kaliya waxaan inay yihiin wax routing lagu sameyn doono. waxaan u bedelnay router. waxaad caadi ahaan u isticmaali kartaa browser router, balse badanka waxaa loo bedelaa router. sababta browser router waa magac dheer. intaas kadib waxaan soo import gareysanaynaa routes. waxaad ku dhex qoraysaa kaliya waa component ee leedahay React router DOM. waxaana loo adeegsadaa in lagu sheego in waxyaalahan halkan ku qorayso aad ku sameynayso route. routekana waaba routingkii aad sameynaysay. oo haddii aad tiraahdo routeka pathkiisa waxaad ka dhigtaa slash waa home-tii. waxaad noo soo muujisaa elementiga showcase-ka. waxaad nooma soo muuqanaya iminka elementiga showcase-ka. React router DOM waa mowduuc aad u guda dheer. haddii aan dhahno iminka waan sharaxaynaa si detail oo qof walba fahmi karo waxaa laga yaabaa inay noo qaato waqti dheer, balse aan dul marno un. waxaan tegaynaa header filekeena. ma isticmaali doono ama anchor tag sababtoo ah waxaan arkaynaa eeda markaan isticmaalayno. tusaale kale haddaan inta nidhaahno waxaa dhacaya page loading. ma rabno page loadingkaas inuu dhaco. si aan uga takhalusno page loadingkaas waxaan adeegsanaynaa nav link oo ah component ay leedahay React router. waxaan soo import gareysanaynaa nav linkigaas. import from React router DOM. waxaan soo import gareysanaynaa nav link. Okay, kaliya aan soo qaadano nav linkigan waxaan ku bedelaynaa meeshan hajir eeda ah aan ku bedelno nav linki. meeshaan eeda aan ku bedelno nav linki. meeshaan aan dhahaynay hajiraftana waxaan leenahay to oo halka uu aadayo. halkani waa home-ka, ma doonin inuu meelna aado. Okay, ugu dambeynna raabkeeda ending taggeeda waxaan ka dhigaynaa nav link. save. haddii aan hadda u raacino wax yar oo save dhahno haddaad u fiirsataan hadda markii aan home-ka ku dhufano ma dhacayo wax page loading ah. wax page loading ah ma dhacin. haddii aan laakiin productska aan ku dhufano waxaa dhacaya page loading. That is awesome. Okay, waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. dhammaanna aan ku bedelno nav linkigan qaybtaan hajirafta aan dhahno to. waxaan doonaynaa inuu aadno product. intan aan ka dhigno nav linki. inta aan ka dhigno nav linki. hajiraftan aan ka dhigno to. waxaan doonaynaa inuu aado kan about.
okay meeshan aan ku bedelno nav link okay inta key baa ka maqan awesome kana aan ku bedelno nav linki meesha hajrafta ana aan dhahno to waxaan doonaynaa inuu na geeyo contact save save let's see now right waxaan arkaynaa hadda markii aan home pagekeena joogno inaan haysano showcasekeena balse haddii aan ku dhufano products waxaa baxaya showcasekeeni waxaa soo muuqanaya headerkeena iyo footerkeena sababtoo ah iyaga kumayna jirin routingka basically haddaad aapkan tagto waxaa la routingka lagu sameynayaa intii ku dhex jirto routiskan wixii ka dhex baxsan routiskan oo hadda headerka uu ka dhex baxsan yahay wax routing laguma sameynayo footerka uu ka dhex baxsan yahay wax routing laguma sameynayo haddaan comment u sameynayo routing items aan dhahno commentigan alright intaas kadib waxaan u gudageli doonaa inaan sameyno products pagekeena okay aan iska xirna kan componentska aan tagno aan sameyno file aan u magac darayno product.js productska waxaan ku haysanaa ilaa 6 item wareen aan sameyno functional component aan dhahno rfce enter kaliya aan soo return gareyno h1 aan dhahno products page balse sidee loo arki karaa products pagekeena hadda haddii aan fiirino product waan joognaa balse ma arkayno products pagekeena kaliya waxaan arkaynaa showcasekeeni haddii aan ku dhufano productskeena waxaan arkaynaa headerkeeni iyo footerkeeni kaliya si aan u aragno waxaan tegaynaa aapkeena halkii aan caadi usoo import garaysan lahayn waxaan soo duplicate garaynaynaa routekan bathkiisa markaa waxaan ka dhigaynaa product markii uu bathkiisa uu yahay product waxaan soo muujisaa elementiga products page okay products isagaa si automatic noogu soo import gareeyay save let's see now alright mujeedaan hadda haddii aad logiga aragtaan homeka haddii aad tagto waxaa arkaysaa showcaseka mana dhacayaan wax page loading haddii aad products ku dhufato waxaa baxaya page loadingka waxaa soo baxaya pagekeeni productska ahaa oo aan ku qornay h1 products alright aan gudagalno marka ugu horeyn waxaan ku daraynaa class name oo u bixi doona markaasi product h1 kan waxaan ku daraynaa iyadana class aan u bixin doona markaasi product title waxaan ku dhex qori doonaa iyadana our products save markii aan kasoo baxno product titlekaas waxaan samaysan doonaa class aan u magac dari doono product list okay product listigan si manual ah uma qorayno itemyadeena oo waan samayn karnaa inaan si caadi u qorno balse waxaan sameynaynaa folder aan u bixinayno data.js folderkan waxaan soo dhex gashanaynaa dhammaan datada aan isticmaali doono paste haddii aad fiirsaan waxaan ugu horeyn soo import garaysanaynaa imageskan oo assetska ku jiro waan soo import garaysanaynaa iphone 8 11 12 iyo macbook pro inta kalena waxaan sheegaynaa addresskooda oo si internet ahaan uu soo gashanaynaa waxaan haysanaa id ah 1 waxaan haysanaa namekiisa oo ah apple watch mid walibana waxaan haysanaa intaas oo waa basic data ah si automatic aan u export gareynaynaa asigoo ah product haddii aan meeshaan product listiga aan ku bedelno data si aad u fahantaan alright waxaan isticmaali doonaa datadan si aan u isticmaalno ugu horeyn waxaan soo import garaysanaynaa ma doonayno productska inaan datada kusoo raab garayno waxaan doonaynaa inaan component cusub aan sameyno oon ku isticmaalno datadan si aan u fahantaan props iminka caadi inta caadi waan ugu samayn karnaa balse ma ugu sameynayno waxaan tegaynaa components waxaan sameynaynaa file kale aan u bixi doono product list.js ama .jsx rfce okay h1 products list save waxaan kusoo import garaysanaynaa productskeena gudihiisa halkan haddii aan tagno aan idhaahno product list enter
okay save waxaan doonaynaa inay noo soo baxdo products pagekeena h1kan ay ku dhex qoran tahay products list sababtoo ah asiga unbaa ah our products waxaan doonaynaa inay noo soo baxdo h1 ay ku qoran tahay our products waxaan doonaynaa inaan soo bixino h1 ay ku qoran tahay our products iyo weliba sidoo kale products listigan oo aan ku haysano iyadana h1 ay ku qoran tahay product list okay as you can see our products iyo products list balse ma doonayno dheetadii inaan u isticmaalno habkan oo hadda waan dhihi karnaa inaan si manual usoo gelino oo dhahno waxaan imageka aan soo gashano kadibna aan soo gashano titlekii descriptionkii pricekii mid walibana aan sidaas soo gashano balse taasi waxay naga qaadanaysaa code fara badan waxaan sameynaynaa habka fudud waxaan ku dul wareegaynaa datadan si aad ugu dul wareegto hadda waxaan arkaysaa inaan dhahnay import data sidaan naguma shaqayn doono sababtoo waxaan usoo import garaynaynaa component caadiya marka aad componentiga aad tiraahdo export default sidaan waad usoo import garaysan kartaa balse haddii aadan dhihin export default sidaan uma soo export garayn kartid alright waxaan ku qasbannahay inaan dhex gelino curly braces this works as okay waxaan sameynaynaa inaan datadan ku dul wareegno oon kasoo fetch garaysano datada si aan datadan u isticmaalno waxaan leenahay datadan aad haysato map waa higher method ay leedahay javascript waxaana loo adeegsadaa markaasi itemyo badan aad haysato itemadaas inaad ku dul wareegto oo mid waliba datadiisa soo fetch garaysato map waxay qaadanaysaa waqti inaan sharaxo haddii aad u baahan tahay waxaad kasoo baari kartaa internetka haddii aad badankiin u baahataana waxaan ka samayn doonaa cashir waxaa inta u baad garanaysaa parameterka waxaad ka dhigi kartaa magaca doonto aan idhaahno kale d intaas kadib waxaan idhaahna arrow waxaad soo ritaan garaynaynaa maybe tusaalo kale h1kan aan ku dhex qorno curly braces waxaan leenahay d oo ah parameterkan aan u baas garay haddaan parameterkan hover garayno waxaan arkaynaa parameterka d-da inay ku guda jiraan id name description image iyo weliba price waxaan dhahaynaa d.name maybe haddaan iminka browserkeena aan fiirino waxaan arkaynaa dhammaan magacyadii datada noogu jiray alright haddii aan hadda caadi ahaan aan usoo geli lahayn waxaa laga yaabaa inay code fara badan laga qaadi lahayd balse hadda keliya waxaan sameynay datadaasaan ku dul wareegnay inaan soo ritaaran garayno waxay naga qaadatay codekaas yar taasoo dhibaato badan aadan kala kulmayn haddii aad rabto inaad debugging ku samayso balse anagu ma doonayno inaan sidaan usoo ritaan garayno sidaan waan usoo ritaan garayn kartaa balse waxaan doonayaa inaan isla aragno probis oo waxaan doonaynaa markaasi filekan aan soo samaysanay inaan u base garayno datada si aan u base garayno ugu horeyn qaybta ritaanka ah keliya aan soo ritaan garayno componentigaas oo ah product list ugu horeyn aan soo import garaysano product listigaas import product list waxaad kasoo import garaystaa from /product list okay haddaan isticmaali karnaa product listigan save haddaan dhahno wuxuu in badan noo soo ritaan garaynayaa product list oo ilaa 6 jeera alright product list oo ilaa 6 jeera waxaan doonaynaa product listigan ugu horeyn aan iska tirtirno h1kan aan ku bedelno class aan u bixino product item intaas kadib waxaan dhex gashan doonaa ugu horeyn divkan waxaan raacin doonaa image oo ah imageka titleka aan ku haysano imagekan sourcigiisa wuxuu noqonayaa probis aan usoo paste garayn doono ugu horeyn aan sii dhamaystirno codekan waxaan raacinaynaa h1ta waxay noqonaysaa name waxaan kaloo raacinaynaa h4tan iyaduna waxay noqonaysaa description waxyaalaan aan hadda ku qorayno waxaan usoo baas garayn doonaa as probs waxaan kaloo raacinaynaa paragraph iyadana waxay noqonaysaa aan ka hormarino $sign price alright that's all wuxuu noo soo saarayaa error sababtoo ama haysano datadan si aan usoo base garayno probis basically waxaa laga wadaa sida ay componentska data isugu gudbin karaan tusaalahaan haddii aad joogto product oo doonaysa inaad product list data la wadaagto waxaa loo yaqaanaa probiska keliya waxaa gudbin karo componentiga mainka ah oo tusaale ahaan adigoo joogo product list data uma gudbin kartid productigan keliya waxaa data kusoo gudbin kara productiga mainka ah
productiga mainka ah data uma gudbin karo app.js kaliya waxaa data soo gudbin kara app.js mar walba waxay datada gudbin karaa productiga mainka ah. Alright, waxaan u base garayn doonaa probis. Okay, probis markaa u base garaynayso waxaad tegaysaa halkan. waxaan ugu horreyn u base garayn doonaa name, waxaan kaloo u base garayn doonaa description, waxaan kaloo u base garayn doonaa price, waxaan kaloo u base garayn doonaa ugu dambeyn image. Alright, waxaan ka keenaynaa itemyadan datadan aan ku dul wareegno. Hadda haddaan hover garayno waxaan haysanaa intaas oo object. Alright, waxaan dhehaynaa kan ugu horeeya waxaad ka dhigtaa d.name, kan kalena waxaad ka dhigtaa d oo parameterka aan u baas garaynay datada ah .description, kan kalena waxaad price ka dhigtaa d.price, waxaad ka dhigtaa image-kana d.image. Alright, hadda waxaan u base garaynay probiska. Si aan probiskaas u aqbalno waxaan tegaynaa product list, waxaan tegaynaa functionkan agtiisa, halkaan aan curly brace ku furaynaa oo ah inaan aqbalno probiskaas. waxaan dhehaynaa waxaad aqbashaa probiska name, waxaad kaloo aqbashaa probiska description, waxaad kaloo aqbashaa image, ugu dambeynna waxaad aqbashaa price. Si aan u isticmaalno halkaan waxaa naga maqan kaliya image-kan, waxaan ka dhigaynaa asigana image save. Alright, image-kan aan ka dhigno small letter save. waxaan isticmaalnaa image oo material icons ah ma doonayna laakiin. Alright, sida ujeedaan hadda waxaan haysanaa titlekii, sidoo kale waxaan haysanaa descriptionkii, waxaan haysanaa pricekii, balse imageka ma haysano. Sababtuna waxay tahay imageku wuxuu inoo ahaa cover. waxaan arkaynaa markii aan css-ka aan soo gashano fileka css-ka. Okay, waxaan tegaynaa styleskeena, waxaan samaysanaynaa folder, waxaan samaysanaynaa file aan u magac darayno product.css, waxaan soo gashanaynaa stylekeena paste. Alright, waxaan haysanaa styling basiga, waxaan haysanaa productiga mainka widthgiisaan badinaynaa, titlekiisana font familygiisaan bedelaynaa, sizekiisana waa bedelaynaa. Product listiga oo halkaan aan ku haysanana waxaan widthgooda ka dhigaynaa 70 view widths. waxaan dhehaynaa display grid, waxaan dhehaynaa columnkiisa waxaad ka dhigtaa mid waliba 1 fraction 1 fraction 1 fraction, waxaan doonaynaa 3 inay noqdaan. Alright, product item aan style garaynaynaa. Stylingkan ma doonayo inaan waqti ku bixiyo, balse hadda aan tagno product filekeena. labada file baan kusoo import garaysan doonaa. aan tagno product filekeena, aan dhahno import /styleska tag, waxaad tagtaa product.css save. intaan laynoo soo qaad, waxaan ku paste garayn doonaa haddana product listigan save. hadda aan eegno marka. Alright, wow, this is very cool. waxaan haysanaa dhammaan itemyadeeni, waxaan haysanaa markaan hover garayno box shadow. What is else? datadanna waa mid aad u qurux badan. This is really awesome. mana aynan qorin code fara badan haddii aad fiirisaan halkaan sida wax u dhacayaan. haddii aan yaro sharaxo datadan product css-kan iska xirno. ugu horreyn waxaan samaysanaynaa title, waxaan samaysanaynaa class aan u magac darayno product list. intaas kadib waxaan soo import garaysanaynaa datadan oo ah datada halkaan noo taala ay noogu jiraan id, name, description, image iyo weliba price. Okay, waxaan sameynaynaa datadaasaan ku dul wareegaynaa. si aan u dul wareegno waxaan sheegaynaa keywordkan usoo bixinay .map oo ah hire method ay leedahay javascript. waxaan u base garayn doonaa parameter oo aan ka dhigi doono d, kadib waxaan soo return garay doonaa jsx. markaan soo return garay doono waxaan soo dhex gelinaynaa halkaan componentigan oo aan halkaan kusoo sameynay. componentigaasaan u base garayn doonaa dhammaan datada, nameka, descriptionka, priceka iyo weliba imageka. componentiga markaan imaano waxaan aqbalin doonaa probiskii aan soo base garaysanay. Alright, kadib waxaan soo return garayn doonaa image, waxaan kaloo soo return garaynaynaa h1 oo ah namekii, h4 oo ah description iyo paragraph oo ah pricekii. waxaana soo import garaysanaynaa styleskeeda. That is really cool. Alright, what else?
okay buttonkan haddii aan ku dhufano meelna inama geynayo aan ka shaqeyno haddii aan tagno waxaan tegaynaa showcasekeena buttonkan halka aan ka dhehaynay waxaan ka dhigaynaa nav link asigaa si automatic kugu soo export garaynaya ku dhufo keliya meeshaha jirafta ana waxaan ka dhigaynaa to ha aado /product ending taggeedana waxaan ka dhigaynaa nav link save let's see now ku dhufo wow ku dhufo wow our product is home page ma dhacayaan wax page loadina this is really awesome waa one click on okay intaas kadib waxaan gudageli doonaa about pagekeena oo haddii aan about pagekeena ku dhufano waxaan haysanaa keliya labadan oo ma haysano about pagekeena okay waxaan sameynaynaa componentii gudihiisa file aan u magac dari doono about.js rfce waxaan soo return garaynaynaa h1 aan dhahno about page save aan imaano app.js-teena roadkeeda aan soo duplicate garaysano roadeskan kan baadkiisa waxaan ka dhigaynaa about waxaad hubitaa baadka roadkan iyo baadka nav linkiga inay isleeyihiin haddii kale ma ogaan doono linkiga markaad raacdo wuxuu ku geenayaa road qaldan okay save aan soo return garayno about save okay kuwan productskan aan iska xirno sababtoo ah kama shaqayn doono headerkan asigana iska xirno keliya aan soo reebano app iyo about okay halkii aan soo return garaynayna h1 aboutkeenu isagu waa iska fudud yahay keliya waxaan u qaybinaynaa laba qaybood oo right iyo lefty aan ka bilaabno dot right-ka waxaan dhex gashanaynaa imageka aan dhex gashanayno waa assetska haddii aad tagno waa about.png alright aan soo import garaysanay imagekaas waxaan tegaynaa qaybta ugu koreyso waxaan leenahay import waxaad soo import garaystaa about waxaana kasoo import garaystaa from assets/about.png okay sourcigiisana waxaan ka dhigaynaa curly braces about waxaan gudagelaynaa qaybta leftiga ah waxaan soo celinaynaa h1 aan ku qorayno our no about as aan dhahnaba kadib waxaan raacinaynaa text caadi ah oo b haddaan nahno lorem 90 maybe save okay waxaan ku haysanaa keliya intaas haddii aan isla eegno hadda alright waxaan sheegnaa hadda showcasekeeni waxaan tegaynaa products page waxaan sii tegaynaa about page this is really awesome waxaan ku dari doonaa stylingkeena si uu inoo qurux badnaado waxaan soo gashanaynaa filerka styleka ah haddii aan tagno styleskeena oo aan sameyno file cusub aan u magac dari doono about.css waxaan soo dhex gashanaynaa stylekeena paste keliya stylekeena waa intaas waxaan style garaynaynaa about iyo imageka labadaas oo radius aan yeelino kan aan widthgiisa ka dhigayno 100% heightkiisana 90 vh margin topna 100 pixel that's all save aan tagna about js-keena waxaan soo import garaysanaynaa stylekaas /about.css save let's see now inta waxaan raacinaynaa class aan u bixinayno about sababta aan u bixinayno waxay tahay waxaan ku haysanaa styling basica save haddaan fiirin hadda wow this is really awesome home products about waxaa keliya inoo dhiman contact pagekeena alright waxaan sameynaynaa component cusub waxaan u bixinaynaa contact.jsx okay waxaan dhahaynaa rfce enter okay waran aan kusoo aan routingka dhex gelino shift alt down inta aan ka dhigno contact meesha aan elementiga about ahaan aan ka dhigno contact okay waa kana ku dhufo save alright okay contactigeena waa asiga iska basic
waxaan sameynaynaa class aan u bixin doonaa contact. waxaan qaybinaynaa asigana laba qaybood left side iyo right ah. aan ka bilaabno left side. leftiga waxaan dhex gashanaynaa imageka haddaad fiirisaan waa imagekana isticmaalaynaa oo contact.jpg. okay, haddii aan soo import garaystano ugu horeyn aan dhahno import contact from dot slash assets slash contact dot jpg. okay, intaan waa soo qaadano. ma doonayno inaan caadi image aan u dhex dhigno, sababtoo waxaan doonaynaa inaan background ka dhigno. si aan uga dhigno waxaan leenahay style. waxaan tegaynaa halkan gudihiisa ah. waxaan leenahay stylekiisa waxaad ka dhigtaa background image template literal. si aan sameyno waxaan qoraynaa calaamadan. okay, waxaan leenahay url-kiisa waxaad ka dhigtaa $sign oo ah template literal markaad qorayso ood rabto javascript iyo html inaad hal meel ku wada qortaa la adeegsadaa badanaa. waxaan leeyahay imagekan contactiga ah. okay, paste. intaas uu soo baxano qaybta leftiga. waxaan imaanaynaa qaybta right-ka ah, right side. hadaan dhahno qaybta right side-ka ah waxaan ku haysanaa form. ugu horeyn aan ka bilaabno title-ka aan dhiraahno contact us. okay, markaan kasoo baxna kadibna waxaan sameysanaynaa form caadiya. haddaan dhahno form actionkiisa waxaan dhehnaa waxba yuuna action yeelanin. waxaan sameynaynaa ugu horeyn labelkan waxaan ka dhigaynaa for name. waxaan dhehaynaa waxa ku dhex qormaya name. kadib waxaan raacinaynaa input field. inputkan typekiisa ha noqdo text. placeholderkiisa oo markii waxa laga kor arkayna ha noqdo enter your name maybe. intaan haddaan 3 mar oo kale soo qaadano oo halkan aan ka dhigno meesha nameka aheyd email. inputka typekiisana aan ka dhigno email. halkan aan ku bedelno iyadana messageka placeholderkiisa haddii aan sidana ka dhignana placeholderkiisa emailkana haddaan ka dhigno enter your email maybe. alright, haddaan save dhiraahno messageka ma doonayno inuu noqdo input caadiya, sababtoo waxaan rabnaa meel weyn oo banaan oo qofku wax soo gashan karo. si aan u sameyno meesha inputka waxaan ku bedelaynaa text area. alright, inputka aan iska tirtirno aan dhahno text area caadiya. aan iska tirtirno columns id iyo waxyaalaha namekeeda intaba. kaliya rowskeeda aan ka dhigno maybe 8. placeholderkeedana aan ka dhigno message. alright, okay, what's wrong into text area ka maqan. okay, save haddaan dhahno waxaan kaloo kusii daraynaa button submit ah. haddaan buttonkan aan ku dhex qorno submit. save submit. aan ku noqono hadda browserkeena. haddaan ku dhufano contact. okay, waxaan arkaynaa inay isku dhex waasheen wixii dhammaa, balse markii aan soo gashano stylingkeena wax walba way hagaagayaan. aan soo gashano filekeena style.css. okay, aan iska xirno assetskan sidoo kale componentskan. aan tagno stylingkeena waxaan sameyn doonaa file aan u magac darayno contact.css. okay, waxaan ku paste gareyn doonaa stylingkeena paste save. okay, aan ku noqono browserkeena. intaanan ku noqonin ka hor xeraan iska xirno horta. waxaan tegaynaa halka ugu koreyso waan soo import garaysanaynaa. aan soo import garaysano style contact.css save. okay, this is really awesome. waxaa arkaysaan guys inaan hadda soo gabagabeynay projectigeeni. okay, haddaan isla fiirino hadda homeka haddii aan tagno waxaan ku haysanaa showcasekeeni. ma dhacayaan wax page loadina. okay, haddaan ku dhufano buttonkan go to cart waxaan tegaynaa our products oo 6 item ka kooban. haddii aan ku dhufano about waxaan tegaynaa about. haddii aan ku dhufano contact waxaan tegaynaa contact pagekeena. okay,
ma dareemaysaa inay wax ka maqan yihiin? waxaa ka maqan quruxdii website-ka, waxaa ka maqan animationkii, transitionkii. waxaan adeegsanaynaa library aad iyo aad u wanaagsan ay leedahay React.js oo loo yaqaano Framer Motion. horeen waxaan tegaynaa haddaan dhahno Framer Motion GitHub, waxaan tegaynaa GitHub-kooda. basically Framer Motion waa library ay leedahay React.js, waxaana loogu talagalay in animation aad ugu darsato website-kaada, waana totally free. waxyaalo badan oo animation aad ugu baahantahay ku siinaya. runtii waxay qaadanaysaa wax badan haddii aan dhaho waan sharaxayaa, balse Framer Motion waxaad u ogaataan inuu yahay library loo adeegsado animationka. okay, waxaan tegi doonaa documentskeeda. intaa kadib waxaan tegaynaa introduction. alright, markaan introduction tagno wuxuu leeyahay waxyaalo badan. taagaada agtiisa aad leedahay motion.dev, balse hadda keliya aan soo qaadano installationkeeda. okay, waxaan soo koobiyeynaynaa command line-kan, aan tagno terminalkeena. ugu horeyn aan furnoba terminal cusub. halkan baan paste ku dhihi doonaa enter. inaga xirba kanna inaga xir, labadan aan iska xirno. waxaan sugi doonaa inta inooga soo install garaynayo. si aad u fiiriso inuu kusoo install gareeyo waxaad tegaysaa package.json. filekan waxaa inoogu jiray dhammaan scriptskeena iyo weliba waxaan soo install garaysano. sida ujeeda hadda waxaa noo soo galay Framer Motion version 6.2.8. si aad u isticmaasho Framer Motion stylinka aan iska xirno. waran waxaan ku haysanaa Framer Motion componentgeena showcase-ka. haddaan tagno showcase, about-kan inaga xir. waxaan soo import garaysanaynaa ugu horeyn Framer Motion. okay, waxaan soo import garaysanaynaa motion. Framer Motion waxyaalo badan uu leeyahay. ujeedaan motion style, motion properties, waxyaalahan dhan uu leeyahay. keliya hadda waxaan ka isticmaali doonaa motion. okay, si aan u animate garayno waxaan tegaynaa, si aan u isticmaalno Framer Motion waxaan soo qaadanaynaa motionkan. waxaan tegaynaa divkan aan ku isticmaali doono oo waxaan ka hormarinaynaa maybe motion.dev. ending taggeedana waxaan dhahaynaa motion.dev iyadana. okay, now waa kan ending taggeeda. save. waxaan tegaynaa gudaha taggeeda. ugu horeyn waxaan leenahay animate. waad animate garaynaysaa. qaybta x-ka waxaad ka dhigtaa -500 ugu horeyn, kadibna ha noqoto 5, kadibna ha noqoto 5. okay, waxyaalahan waxaa laga yaabaa inaad marka hore aad ku wareerto. haddaan save hadda intaan dhahno oon tagno browserkeena, aan iska xirno bashkan, kanna aan iska xirno. haddaan hadda homekeena aan tagno, oh, did you see it? wow, okay, did you see it? balse waxaa moodaa inuu xoogaa ordo ku furan tahay. waxaan doonaynaa inuu transition yar yeesho. aan ku naqano. si aan transition u yeelno waxaan tegaynaa halkan, aan kala saarno soo kala jarjarno. waxaan tegaynaa, waxaan dhahaynaa transition. waxaad ku dartaa transitionkaas ha noqdo markaasi durationkiisa maybe 1.2. save. okay, hadda aan fiirino refresh. okay, this is really awesome. waxaan kaloo animation ku daraynaa productskeena. haddaan tagno products filekeena kana aan iska xirno, waxa dambe uma baahan doono. okay, okay, ma doonin inaan products main page-ka animation ku sameyno sababtoo main page-ka maba laha tags. waxaan ku sameynaynaa products lists filekeena. ugu horeyn waxaan soo import garaysanaynaa motion, import motion from Framer Motion. alright, aan soo qaadana motionkan, waxaan ku wrap garayn doonaa halkan motion.dev. halkan ending taggeedana aan tagno motion.dev. alright, now maaha motion.dev. alright, halkan waxaan u baas garaynaynaa
sidii kii hore kale initial oo baas gareyn doonaa markaan initial waxaa laga wadaa animationka markii koowaad uu yeelanayo waxaan isla fiirino waran initialkiisa waxaad ka dhigtaa waran opacitygiisa waxaan ka dhigaynaa 0 waxaan kaloo translate x qaybta x ka waxaan u translate gareynaynaa waxaan leeyahay -500 -50 maybe qaybta y da iyadana waxaan dhahaynaa okay inta eedan waa qalad qaybta y da iyadana waxaan leeyahay -50 maybe kan waa initial animation ku yeelanayo kadib aan leenahay animate waxaad animate gareysaa markaan opacitygiisa waxaan ka dhigaynaa 1 sidoo kale translate x ta iyadana waxaan dhahaynaa 0 waxaan kaloo translate y da iyadana dhahaynaa translate x waa qaybta leftiga iyo qaybta translate y waa qaybta right-ka waxaan rajeynayaa inaad fahansan tahay oo css ah kusoo aragtay translate y da iyadana waxaan dhahaynaa 0 save okay waxaan ku daraynaa transition transitionka waxaan ka dhigaynaa durationkiisa waxaan ka dhigaynaa 0.3 maybe save let's see okay what is this error okay kani ma aqaan gooraan qoray save let's see now home page keena products page keena all right do you see the animation this is something special aan ku darno about page keena iyadana aan tagna about keena wareen waxaan soo import gareysanaynaa motion waxaan kasoo import gareysanaynaa from frame motion okay aan ku raab gareyno dhammaan about keena waxaan tegaynaa ending taggeeda iyadana waan ku raab gareynaynaa all right save about keena iyada waxaan u yeelaynaa animation iska fudud wareen waxaan ka dhigaynaa initialkeeda ha ahaado opacitygiisa 0 okay aan ku sameyno animate intaas kadib animatekiisa waxaan ka dhigaynaa keliya opacitygiisa ha noqdo 1 waxaan ku daraynaa transition oo marabna si degdeg inuu usoo baxo transitionkaas waxaan ka dhigaynaa isagana durationkiisa ha noqdo intuu ku guda jirayo 0.4 maybe aan hadda fiirino marka okay aan refresh dhahno awesome about page home page products page okay contact page keena iyadoo waxba animation kuma darayno okay waxaan rajeynayaa inaad in badan ka fahamtay React.js waxyaalaha aad koorskan haddii aad dhamaysatay aad ku baratay waxaa ka mid ah inaad fahamtay JSX, Probis, React Router, Map Method, Frame Remotion and so on waan ku hambalyeynaya haddii aad intaas hal course aad ku baratay waxaan kaa codsanayaa inaad mar labaad iyo mar saddexaad channelkan aad kusoo birto see you next video